waxay ku leeyihiin haddii aadan la safan kooxda ma fahmin xaqiiqada. laakiin anigu waxaan leeyahay ma fahmin xaqiiqada mise adiga ayaa iibiyey mabda'a. qaybta koowaad eexda la qurxiyey. maanta fahamka xaqiiqada waxaa laga dhigay erey lagu qariyo eex. inaad aamusto marka dulmi dhaco waxay kugu yeeraan xigmad. inaad diiddo inaad la safato dulmile waxay kugu yeeraan xamaasad. laakiin su-aashu waa goormo ayay mabda'nimadu noqotay dembi? goormo ayuu ka fogaanshaha dulmigu noqday doqonnimo? qaybta labaad dulmi magac ma leh. daawade, dulmigu calan ma leh, dulmigu xisbi ma leh, dulmigu diin ma leh. qofkii taageera dulmi si uu uga hortago mid kale wuxuu galay wareeg aan dhammaad lahayn. tusaale ahaan oo ila meereysa waad garani soo waa ila meereysadii oo waxaa weeyaan fanaanadeeni deeq afar qaada iyo fanaankii magaciisa aan garanay. qur-aanku wuxuu sheegay marka dulmilayaal isku dhacaan ma aha inaad midkood difaacno, waa dignin eeba ka timid. qaybta saddexaad mabda'a lama iibiyo. ma bedelno caqiidadeena si ay u qanciso siyaasad. ma tirtiro xasuusta dulmigu sababtoo ah isbahaysi cusub ayaa la sameeyey. ma ilowno dhiig ku daatay dhul muslimiin ah sababtoo ah qariiradda awood ayaa isbedelay. ibnu katiir wuxuu xusay in dulmilayaasha qaar lagu salido qaar kale sababta falalkooda, laakiin taas macnaheedu ma aha inaad noqoto taageero midkood. qaybta afraad cadaalad xitaa marka cara jirdho. haa, ma ku degdegno xukun qof gaar ah. haa, ma ogolo xajirnimo. laakiin sidoo kale ma qurxinno dulmi, ma cudurdaarno gardaro, ma noqonno qalab lagu adeegsado khilaafaad siyaasadeed. cadaaladdu waa miisaan istaaga xitaa markuu cara jidho. qaybteeni shanaad digniin. qofkii qurxiya dulmi, qofkii caawiya gardaro, qofkii aamusa marka xaqa la leexiyo ha ogaado sunnooyinka eebbe cidna uma eexdaan. qaybteeni ugu dambaysay duco. allow naga ilaali inaan noqonno dad mabda'a iibiyey. naga ilaali inaan la safanno dulmiile magacuu doona ha lahaadee. daawade, haddii aad rabto falanqayn toos u taabanaysa qalbiga ku xidhnow janalkeena abuu walad. daawade, haddii aad ilaa ay dhammaadka aad naga soo gaartay ku salli nabigeena sharafta leh maxamed sallallahu calayhi wasallam.